madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al-Asad ayaa safarkiisii ugu horreeyay ee uu ku tago dal Carbeed ku gaadhay dalka Imaaraadka Carabta. Bashaar al-Asad ayaa tan iyo sanadkii 2011 markii duufaanadu ku kaceen aan booqan waddan Carbeed ayaa shalay Jimcihii gaadhay dalka isu taga Imaaraadka Carabta oo ka mid ahaa dalalkii markii kacdoonnadu ka bilaabmeen xidhiidhka u gooyay Suuriya iyo taliska Bashaar al-Asad oo lagu eedeeyay in ay sameeyeen gumaad wadareed isla markaana uu diiday inuu xilka ka dego. waxaana uu Bashaar al-Asad uu kulanno la yeeshay madaxda sare ee Imaaraadka iyo weliba maalqabeennada dalkaasi, iyadoo sida la sheegayna ay ka wada hadleen sidii Suuriya oo ah dal uu dagaal ka socday 11 sano u dambeysay loo gaadhsiin lahaa kaalmooyin dhaqaale iyo weliba iskarabtaag siyaasadeed si ay uga soo kabato burburka lixaadka leh ee ka soo gaadhay kadib markii uu dalkaasi cagaha la galay dagaallo sokeeye oo ka dhashay kacdoonno lagu diidanaa maamulka Bashaar al-Asad oo xukunka laga furfuri kari waayey. dalkan hodanka ah ee Imaaraadka ayaa ballan qaaday inay dalkaasi siin doonaan gargaar dhinacyo badan ah oo loogu talagalay in dalkaasi lagaga samata bixiyo dhibaatooyinka ragaadiyey. madaxweyne Bashaar al-Asad ayaa dalka soo dhoweeyey ee Imaaraadka si weyn ugaga mahad celiyey qaabilaadda heerka sare ee ay u sameeyeen, isagoo sheegay in ay ahaayeen dalal leh waxyaabo badan oo mideeya. hase yeeshee booqashadaasi waxaa aad uga soo hor jeestay isla markaana wax lagu xumaado ku tilmaamay dalka Maraykanka oo sheegay inuu Asad uu yahay dambiile dagaal oo geystay falal bila'aadantinimada ka baxsan, isagoo madaxda Imaaraadka ku dhaleeceeyay qaabilaadda ay u sameeyeen madaxweyne Bashaar al-Asad. Bashaar al-Asad ayaa tan iyo sanadkii 2011 meelna aan uga bixin dalkiisa marka laga reebo Iiraan iyo Ruushka oo iyagu ahaa labada dal ee sida weyn u taageeray, waxaana uu ahaa go'doon siyaasadeed oo dunida aan meel ka tagi karin. ha yeeshee waxaa jira warar sheegaya in booqashadiisan Imaaraadku ka timid dhanka Ruushka oo baryahan dambe ay isku wanaagsanaayeen dalalka Khaliijka oo ka xidhiidh furtay reer galbeedka, waana taas sababta keentay in Maraykanku si weyn uga soo hor jeesto soo dhoweynta Imaaraadku u sameeyey Bashaar al-Asad, iyagoo reer galbeedku Bashaar al-Asad ka sokow dagaalka uu dalkiisa ka wado kula coloobay garab istaagga uu siiyo dalka Ruushka oo dhowaan la sheegay inuu u diray ciidamo u dagaalama. lama oga tallaabada uu Maraykanku ka qaadayo Imaaraadka ee ku wajahan soo dhoweynta ay u sameeyeen ninkan ku eedaysan inuu dilay in ka badan 300,000 oo reer Suuriya. waxaase muuqata in siyaasadda bariga dhexe ay isu beddeshay si aad u weyn.